قرب رمضان واحنا سوا وفي نفس الميعاد، يا رب نصوموا سوا يا رب العباد. عجل عجل يا رمضان، أنا نفسي محتاجة حنان، أبكي في ليلك وانهل خيرك، خدني في حضنك يا رمضان. بقدوموا أهنيكم انتو أهاليكم، ربي يبلغكم، ربي بلغنا رمضان. وعنا wanaagsan daawadayaal, halkani waa Xareed Media. waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka baraarujinta Ramadaanka oo haadahan oo kala aad ka daawataan channelka Xareed Media Network. قرب رمضان واحنا سوا وفي نفس الميعاد، يا رب نصوموا سوا يا رب العباد. قرب رمضان واحنا سوا وفي نفس الميعاد، يا رب نصوموا سوا يا رب العباد. daawadayaal, waa habeenimo Jimco ay soo galayso, taariikhduna ay ku beegan tahay 8 bisha 9aad ee Ramadaan sanadkan 1441 Hijriga, ku beeganna 1 bisha 5aad ee May sanadka 2020. qodobada aad ku daawan doontaan barnaamijka baraarujinta Ramadaanka waxaa ka mid ah Hormuud iyo Salaam Bank oo deeq raashin ah gaarsiiyay xabsiga dhexe iyo isbitaal Martini, iyo sidoo kale waxaad daawan doontaan qormada baraarujinta Ramadaanka. intaasi waa qodobada aan ku qaadaa dhigi doona barnaamijkeena. fadlan daawada haddii aad nagu cusub tahay ku soo biir asxaabta nala jaan qaado oo subscribe saar channelka, gambaleelkana furo, muuqaalkana like saar, lana wadaag asxaabtaada si aan u ogaano qodobka ku xiisa geliyay. fadlan faalo inooga reeb. حضنك يا رمضان بقدوموا أهنيكم، انتو أهاليكم، ربي يبلغكم، ربي بلغنا رمضان. waa tahay daawadayaal, markaana barnaamijkeena ayaynu gudagalaynaa. qodobka ugu horeeyana waxa uu yahay Hormuud iyo Salaam Bank ayaa deeq raashin ah gaarsiiyay xabsiga dhexe iyo waliba isbitaal Martini. warbixintan waxaa inoo eegaya Maxamed Yaasiin Shariif Sahal. Hormuud Foundation oo sanad walba marka la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan oo booqata xarunta xabsiga dhexe ee Xamar waxay geysaa deeq mucaawino ah oo ay ugu talagaleen maxaabiista xabsiga ku jirta in ay fadliga bisha barakeysan ee Ramadaan ugu faa'iideystaan. deeqdan oo isugu jirta bur, bariis, baasto, sonkor, saliid, caleen shaah, caabitaan, timir iyo 5 neef oo geela. waxaa kaloo ay Hormuud Foundation maxaabiistu siisay dhar ay ugu talagashay inay ku ciidaan maalinta ciida. xubno ka tirsan Hormuud Foundation iyo Salaam Somali Bank ayaa si wadajir ah u tagay xarunta xabsiga dhexe ee Xamar, halkaasi oo taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed ay si wadajir ah u guddoonsiiyeen deeqda ay xabsiga dhexe ugu talagaleen. Cabdullaahi Nuur Cusmaan, gudoomiyaha Hormuud Foundation, ayaa faahfaahin ka bixiyay deeqdan ay gaarsiiyeen xabsiga dhexe ee Xamar. Maryan Amiin Awees oo ka socotay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka hadashay ahmiyadda ay ka dhigan tahay deeqdan ay maxaabiista xabsiga ee Muqdisho Hormuud Foundation iyo Salaam Somali ay gaarsiiyeen. General Mahad Cabdiraxmaan Aadan, taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed, ayaa aad ugu mahadceliyay madaxda shirkadda Hormuud qaybaheeda kala duwan sida ay u gartaan in fadliga bisha barakeysan ee Ramadaan awgeed deeqdan u gaarsiiyaan maxaabiista xabsiga dhexe ee Xamar ku jiraan. dhanka kale, hay'adda Hormuud Foundation ayaa ciidamada naafada ee xoogga dalka Soomaaliyeed guddoonsiisay deeq isugu jirta lacag kaash ah iyo timir, waxaana gudoomiyaha Hormuud Foundation Cabdullaahi Nuur Cusmaan uu sheegay in deeqda ay ka kooban tahay $5,000 Mareykanka iyo 50 kartoon oo timir ah. waxaa deeqdaasi u gudoomay ciidamada naafada ah ee ku jira isbitaalka Martini. afayeenka ciidamada naafada oo hay'adda Hormuud Foundation kaga mahadceliyay taageerada ay la garab taagan yihiin dadka danta yar mar walba.
يا رب صوموا سوا يا رب العباد. waa tahay daawadeel markaana waxaynu gudagelaynaa qormada baraarujinta ramadaanka. qormada ugu horeysana waxa ay noqon doontaa islaamka iyo weliba cuntada. cuntadu qiimo weyn ayay ku leedahay islaamka. waxa ay xoojinaysaa xiriirka dadku ay la leeyihiin Allah, sida uu alle ku yiri suuratu Taaha aayadda 81. wax ka cuna waxa wanaagsan ee aan idinku arsaaqnay, hana ku xadgudbina si aysan idinku dhicin caradeyda. qofka ay caradeyda ku dhacdo wuu lumay. jirku waa hadiyad alle ka timid oo la siiyay dadka si ay amaanadeeda u hayaan muddo cayiman. inta cuntada laga cuno iyo doorashada cuntadu waxa ay saameyn toos ah ku leedahay qofka wanaagiisa jir ahaaneed iyo nafsi ahaaneedba. cuntooyinka wanaagsan ee dabiiciga ahi waxa ay gacan ka geystaan horumarka jirka wanaagsan iyo shakhsiyad ahaan. horumarka jirka wanaagsan iyo shakhsiyad suuban. in la cuno wax ka badan inta loo baahan yahay waxa uu islaamka weligiiba u arki jiray wax xun, maadaama loo arko in ay kordhiso jacaylka adduunyada, taas oo keeni karta iimaanka oo yaraada oo markaana ay caajis geliso nafta, caqabadna ku noqoto horumarka iimaanka iyo in ay kordhiso dhibaatooyinka jirka. nabigeena subanaan nabadgelyo in naxariis korkiisa ahaatee waxa uu yiri qofna weligii muu buuxin weel ka xun caloosha. bini aadamka waxaa si buuxda ugu filan dhowr wax oo yaryar oo afka la geliyo si ay dhabarka u toosin karaan, balse haddii ay qasab noqoto 3 qaybood qayb u dhaaf cuntada, 3 qaybood qayb cabitaanka iyo 3 qaybood qayb loo dhaafayo nafsiga. xadiidkan waxaa wariyay Ahmed ibn Hanbal, at-Tirmidhi, al-Nasa'i, ibn Majah. qormadeena labaad waxaynu ku eegaynaa maxaynu ka baranaynaa soomitaanka. soonku ma aha jir ahaan oo kaliya ee sidoo kale waa tababarka nafta oo leh faa'iidooyin badan oo waara. waxaana ka mid ah faa'iidooyinkaasi: qodobka koowaad, ogaanshaha Allah oo kordha. soonku wuxuu ka caawiyaa qofka sooman in uu yareeyo ku mashquulidda rabitaanka jirka, wuxuuna xureynayaa wadnaha iyo weliba dareenka si uu si qoto dheer uga fikiro arrimaha iimaanka, sida xiriirka qofku la leeyahay alle iyo weliba dadka. wuxuu geliyaa qofka xaalad uu ku horumarin karo ogaanshaha alle oo waara. sidoo kale waxaynu eegaynaa daawadayaal isbedelada ku dhaca jirka soonka dhexdiisa. dad badani waxa ay ka fikiraan ee ugu weyn ee dhinaca soonku waa in uu caafimaadka u wanaagsan yahay iyo in kale. jawaabtu su'aashu waxa ay u baahan tahay in dulmar lagu sameeyo. waxa jirku ku dhaca soonka dhexdiisa. soonka iyo jirka, isbedelada ku dhaca jirka ee soonku keeno waxa ay ku xiran yihiin dhirirka soonka. dadka badankooda waxa uu jirku galaa xaalad soonka qiyaastii 8 saacadood kadib cuntadii ugu dambeysay, marka caloosha iyo mindhicirku ay dhameeyaan dheefshiidka cuntada ee ay kala baxaan nafaqadii ku jirtay. xaaladaha caadiga ah isha tamarta ugu weyn ee jirku glucose-ka ee jirku ku kaydiyay beerka iyo muruqyada iyagoo ah silsilado yaryar oo sonkor ahi. waa tahay daawadayaal markaana waxaynu eegaynaa khataraha caafimaadka ku imaan kara iyo weliba siyaabaha looga foojignaan karo. khataraha caafimaadka ku imaan kara way tiro badan yihiin, waxaana ka mid ah: 1. laabdilaac ama dhibaato dheefshiid. calooshu waxa ay leedahay deegaan acid ama aashita leh oo ku habboon dheefshiidka cuntada iyo dilista bakteeriyada la socota cuntada. sida caadiga ah caloosha iyo hunguriga cuntada waxaa acid ama aashita ka ilaaliyo nooc gaar ah oo xaako wax ilaalisa ah iyo gidaar u dhaxeeya caloosha iyo hunguriga cuntada.
haddii calooshu samayso asiida ama aashito xadaaf ah ama gidaarka ku yaala xagga hoose ee hunguriga cuntadu uu daciif yahay, waxaa la dareemi karaa laabdilaac. soonku sida caadiga ah wuxuu sababayaa yaraynta samaysanka acid ama aashitada, balse ka fikiridda cuntada ama urinta waxa ay keentaa in maskaxdu ay ku amarto caloosha in ay samayso acid ama aashito dheeraad ah. marka arrintaani keento kororka cadadka asiida ama aashito, waxa uu laabdilaacu noqon karaa dhibaato xitaa soonka dhexdiisa. waatahay daawadeen, markaan waxaynu eegaynaa su'aalo iyo weliba jawaabo guud ahaan. qaybta su'aalaha ee qormada mar walba waxaa xooga ku saari doonaa su'aalaha guud ahaan ee dadku isweydii karaan dhowr ka mid ah. su-aasha koowaad waxa ay tahay, soonka ma laga aqbalayaa haddii uu qofka doorto inuu soomo haddii uu khatar caafimaad oo la hubo u keenayo? alle suuratulbaqara aayadda 184 wuxuu ku leeyahay, soonku waa maalmo tirsan, balse midkiina xanuunsanaya ama safarka ah waa inuu soomaa mar dambe maalma u dhigma inta uu xanuunsanaa ama safarka ahaa. midkiina uu dhibaya wuxuu bixinayaa fidyo oo ah inuu qof sabool ah quudiyo. qofkii iskii u falaa wanaag ka badan inta ku waajibtay wuxuu ogaan doonaa in ay isaga u fiican tahay. soonkuna idinku ayuu idin wanaagsan yahay haddii aad ogtihiin. sida aayadda kore ay inoo cadaynayso, dadka buka waa laga dhaafay soonka. qofka loo arkayo inuu qabo xanuun ku filan si looga dhaafo soonka, waxaa ugu fiican in uu go'aamiyo dhakhtar muslim ah oo waayo aragnimo u leh soonka iyo aqoon ku saabsan shuruucda khusaysa soonka iyo waxa qofka ka dhaafaya waajibka soonka. xitaa dhakhtar aan muslim ahayn oo khibrad dhakhtarnimo leh ayaa bixin kara talo wanaagsan isagoo ka eegaya dhinaca caafimaadka. noloshu way ku weyn tahay islaamka. alle wuu dembi dhaaf iyo naxariis badan yahay. wuxuu ku cadeeyay suuratulbaqara aayadda 286 wuxuuna ku yidhi, kuma kalifno qofna wax aan karaankiisa ahayn. sidaas awgeed in la soomo marka soonku khatar la hubo ku keenayo caafimaadku waa xaaraam. su-aasheena labaad ee ugu dambaysa barnaamijka waxa ay tahay, ma soomayaa qof macaan qaba? jawaabtu waxa ay tahay, dadka si fiican gacanta u haya macaankooda iyagoo ku maamulaya cunto ama kiniini way soomi karaan. dadkaasi waxa ay u baahnaan karaan iyagoo uu dhakhtarku u qorayo in ay bedelaan qaadashada dawada oo ay qaataan kaniinada ka hor iyo kadib soonka maalintii. balse waxaa lagula talinayaa in aanu soomin haddii uu qofka qaato insuliin si uu u maamulo xanuunkiisa macaanka. balse dadku way ku kala duwan yihiin sida jirkooda u qaato insuliinta iyo marka heerka sonkorta dhiigooda. sidaa daraaddeed waa in suurtagalnimada in uu soomo qofka macaanka qaba ee lagu daweeyo insuliinta loo go'aamiyo shakhsi ahaan. waa tahay daawadayaal, waxaynu isla soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena. قرب رمضان واحنا سوا وفي نفس الميعاد يا رب نصوموا سوا يا رب العباد. guud ahaan daawadayaal, waa inaga inta barnaamijkii aad kala socoteen xareed media. intaan ku kulmi doona barnaamijkan kiisa xiga waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo iyo noole kulanta leh. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. أهنيكم انتوا اهاليكم ربي بلغكم ربي بلغنا رمضان. قرب رمضان واحنا سوا وفي نفس الميعاد يا رب نصوموا سوا يا رب العباد.